maanta marka in maanta xamar oo dadkii Soomaaliyeed iyo magaaladii ummadda Soomaaliyeed cashuurteedii maanta xasan maanta uu marba dhinac inta u gadoomo yiraahdo arina garle ciididna garle xuduudaheeda Soomaaliland way ku mahadsan tahay dhulbahanta calanay ruuxooyaan anaga Soomaalinimo taanaga ma saarayso ugamana fadhino laakiin waxaad ogaataan idinku haddii maanta aad arintaas laga dhiidhii waayo in dadka Soomaaliyeed cashuurtoodii yani isagoo maanta midnimo qaran raggii dhulbahanta iyo gabdhihii dhulbahanta ee xasan sheekh maalintuu soo baxay u dabaaldegay maanta wali jeelasha burciyo hargeysay ku xidhan yihiin waxaan doonayaa halkan inaan fariimo badan ka diro waxaan rabaa marka hore nin baa wuxuu yidhi islaantii ma ku ogeyd buu yidhi indhala'aan markaasuu yidhi haa markaasuu dad culimay ku darsatay haddaad ogeydeen dadka Soomaaliyeedow dagaalka laascaanood oo laba xagal ah oo Ismaaciil Horor iyo Xamaalatal Xadab iyo Muuse Dhiigyacab ay shuraaka ku yihiin iyo waxa ay soo dirsadeen maanta wuxuu noqday saddex xagal haddii dadka muxuu ahaayay Soomaaliyeed muxuu ahaayay jooga gobolka Sool Sanaag iyo Cayn lagu leeynayay cashuurta dadka reer Jabuuti ee walaalaheena oo hubka iyo madaafiicda laascaanood lagu duminayo lagu soo iibin jiray maanta waxa ku soo biiray cashuurtii dadka Soomaaliyeed ayaa ku soo biirtay sida darteed inay dadku ogaadaan waa lagama maarmaan waxaad moodaa aan doonayo horta marka hore inaan kala qaado dadka reer Jabuuti markaan oranayo cashuurta Jabuuti macnaheedu miyaa inay maanta yihiin muxuu ahaayay dadka halka degan ee Ciise muxuu ahaayay qoomiyadda dhan ee Ilaahay sharfay iyagoo qabiil ah uu siiyay dawladnimada iyo dhulkooda ballaaran inaan anagu ciil ugu qabno haddaanu nahay beelahan harti maya maanta waxa weeyaan anagu waxaanu ognahay dagaalka gacan yaraha wada inuu yahay Muuse Dhiigyacab iyo reerkiisa kow laba inuu dabada ka waday Ismaaciil Dhiigyacab iyo naagtiisa Xamaalatal Xadab oo ay tahay shuraako ah beejkii la soo akhriyaba in maalin walba lagu fuliyo laascaanood hadday tahay sidii loo duqayn lahaa hadday tahay tactic la isticmaalayo markii afartii guute ee la isku haleynayay ee kibirka maanta reer Isaaq soo tababareen ee buuraha Itoobiya lagu soo tababaray gamaadiid kamid ahayd ku afbeeleen wax naafa iyo wax la cunay ay noqdeen iyo wax maanta godka ku jiro lagu hareereysan yahay waxa loo cararay Ismaaciil muxuu ahay Dhiigyacab oo markii horeba ka dambeeyay waxan in badan baad naga maqasheen maanta anagu haddaanu nahay beelaha halkan joogay harti anagu Ciise weyne cuqdadu ma qabno cashuurtoodana lagu dilayana iyaga cuqdadu uma qabno waayo waxaan ognahay inaana waxba isdheerayn bal ay hoos naga sii xigaan oo maanta uu bahal qaniinsan yahay bahal hadduu labada ilkood ku soo dhiigaaga jaqayo de waxa weeyaan adigaaba taahaya marka anagu maanta beeshaas walaalaheena iyaga baanu leenahay Ilaahay ha idinka gooyo bahalka idin hiigaye muxuu ahaayay labada idin sudhay oo maanta heer waxad ay gaadheen iyagu inta Jabuuti laga soo dejiyo muxuu ahaayay alaabta furniture-ka ah iyagoo 5 dekedood leh alaabtii la keeno muxuu ahaayay meesha la yiraahdo Hargeysa la keeno oo iyadoo Jabuuti ka soo degtay inanka yeelanta isku aroosanaya Jabuuti ka daba yimaadaan si cashuurtu u gasho iyo hudheelka habeenka la seexanayo Hargeysa u camiranto ay iyagu dib uga iibsadaan alaabtii wadankooda ka soo degtay loo duleeyay waxa weeyaan waxa maanta anigu markaan garaadsadaan soo gaaray iyadoo dirac adii Jabuutiga ah Jabuuti oo khamiis kasta ka soo baxo oo hadday kareem iyo tahay xadaarad Jabuuti laga soo gato maantana gabdhaha habar walba kaga faana suuq oo yiraahda gabdhaha habar wal ninkay uunsiga u shidaan waa la suuxiyaa kama duwana hooyadu markay hooyadii maqan tahay ama uu rajayba yahay in markay isqabsadaan labada ilmood ka hooyadii joogto hadii laga xoog weynaado loo rago kama duwana anagu waxaan leenahay walaalaheen 40 sanadood idinka maanta bahal idin hiigaya waxaan leeyahay shicibka halka degan anagu cuqdada idinku qaadi mayna idinka Ilaahay culayska muxuu ahaa idinka qaado oo maanta shabaabkiini baa Jabuuti dhexdeeda lagaga qaadaya boosaskoodii shaqada oo qof kale oo qabiilka reerkan ah la siinaya idinka maanta waxa weeyaan u baahan caawimo anagu cuqdada idinkuma qabno aakhir iyo adduunba gabadha ka wareegta xaramka Ilaahay markuu galo Ismaaciil Abu Jahl markuu galo xaramka iyadoo banaankii ka taaganta Ilaahay xaramkiisa ka mamnuucay
كل هذا ويكمل من نوعانته إلهي ديقس ويبدأنته وقصه وشيدي مايو إنه يقلي دونته أيام ما أنت وحيدون يسا سوماليا إنه ما مشوا سوماليا جيبوتي oo maanta yacnigii qof kasta oo reer Djibouti uu ku noolaan lahaa raaxada adduunka ugu sarreysa haddii xaqooda la siin lahaa ayaa maanta dadkeedii iyo shabaabkeedii kala carareen ma garanaysa waxay noqotay maanta si ay Soomaaliya villa Soomaaliyana u maamusho inay gabadheedu tareerin garayso muxuu ahaayay gabadhii uu guursaday loo guuriyay Saadiq John inay tababarto ina Xasan Sheekh oo Xasan Sheekhna uu Ismaaciil Digyacab tababaro oo iyaduna ay tababarto xaasaska si villa Soomaaliya u noqoto haramuus oo aan macnaheedu wixii laga soo halka laga soo guuriyo la keeno cadeynteeda waan ku siinayaa wadogtay Soomaaliya waxa ka socda hadda in Soomaaliya la yidhi ma jiri doono wax baawar ka weyn madaxweynaha la burburiyo taa macnaheedu waxa weeye waxa ka jira Djibouti in la yiraahdo aabo hal nin wadanka laga yiraahdo oo aan ku dhalin in la yiraahdo dadkii musuqmaasuq bay keeneen oo la daadiyo sifa loogu bedelo dad isaga yacni markaan oranay reerkiisa mahawiya maya waa wuxuu isagu dhalay Djibouti waxa ka taliya waa qoyskii wuxuu isagu dhalay waa wiilkiisii waa wiilashiisii waa gabdhihiisii qof kale ma jiro iyo ragu isagu maanta Ismaaciil Digyacab xitaa markuu isagu madaxu xanuuno iyaguna madaxu xanuuno aaba xanuunsani ana waan xanuunsani sheekadu taagan tahay waxaan maanta doonayaa marka halkan inaan uga diro Ismaaciil Abu Jahl iyo ina xayd waxay iibsadeen amaanad talxadab waxay gateen xildhibaanada dhulbahanta u jooga annaga mindidana lagu dilaa sideedaba nama soo aado iyadoo qaawan mindida dadka dhulbahanta loola yimaado ama harti u soo socotaa imika gal bay ku jirtaa galku waa ayo waa naag iyo nin dhulbahanta oo xildhibaana isku sheegaya haddaan nagu taqaaneen annaga horgallo noo jooga Hargeysa oo nidhaahna waa horgallo xamar bay nooga bilowdeen horgallo naag iyo nimana oo doonaya maanta xitaa maanta dhaawacooda ay magaca la sheeganaya ee halka ku dhaawacmay meel ay kaga waramaan aqoon baasaboor uga soo saari waaye kuwii dhakhtarada dibadda loo qaadi lahaa meeshay joogaan naaga iyo nimana ayaa hadda galkii la geliyay oo xamaalad alxadad iibsatay oo doonaysa inay yiraahdaan waa la idin aqoonsanaya waxa laga iibsaday Djibouti waa la idin aqoonsanaya reer baa 3 sanadood waxa lagu maaweelinayay waa la ina aqoonsanaya tabtoodii baa anaga loogu bedelay waa la idin aqoonsanaya dad miinis anagu Soomaali ma nihin aniga maanta Soomaaliya sanaag iyo cayn oo calanka buluuga ku wada huwana iyagu awalba ay soo hooyeen cidna martuuga ma nihin in la yiraahdo Soomaalinimaad marti u tihiin oo afka xidha waa la idin aqoonsanaya loogu hanjabo oo naagay niman soo diraan telefoonno waa la idin aqoonsanaya Xasan Sheekh yaan la hadlin waa la idin aqoonsanaya Ismaaciil Cumar Geelle anaga Soomaalinimadayada iyo jiritaanka iyagu kuma jiro mugdi Xasan Sheekh baan aqoonsi uga baahnayn Ismaaciil Abu Jahl baan uga baahnayn xaasaska la tababarayay gabdhaha la tababarayay aan uga baahnayn asbu anna xabaytag way halkaas ka talanta waayo Soomaali baanu nahay Ilaahay baa Soomaali naga dhigay xornimadaanu maanta harsanayna waa tii awoowayaasheen ka tageen annaga istabcaynay Ismaaciil Cumar Geelle Digyacab iyo Xamaalad Alxadab waxaan leeyahay buuga aad ka soo dhiiteen Djibouti iyo nimankii naagaha xildhibaanada dhulbahanta ah waxa la yiri hal waliba ninkay korisaa wadkeeda leh halka raggii xulay ee geeyay koobkay wax ku cunayeen ku soo matagaya ee meeshii dhulbahanta awalba ma dooran umana ay tagin mabda dhulbahante dani baa halka geeyay oo guray oo awalba intii xumayd dhabarka noo taabtay maantana waxay ku soo noqdeen meeshii laga doortay ku soo noqdeen Puntland inay gubato maanta oo dhibaatowdo ayaa loola soo saftay Xamaalad Alxadab iyo buugba la soo qaado waxa la yiri midnimada hartiya curatay iyo maanta dadka waxay iska celinaya sidee baynu ku tabcaynaa kuwanaynu iibsanaynaa iyaga la iibsaday iyaga maanta waxay anaga doonayaan inay qof ula faqaan oo telefoon soo diraan oo yiraahdaan iyagoo ku hadlaya afka Geelle Digyacab iyo Xasan Sheekh oo iskaashaday iyo Muuse halkan fadhiya war waa la idin aqoonsanaya dhulbahantow kuwa horta waxaan leeyahay waan idin ognahay waxaad wadaan waa idin ognahay si hadda taqaaneen anagoo barkad waqaf ah oo qof waliba koob ku dhuuqo albaabadii barkada waa la soo xiray wallahi inta labada gacmood la idin ka xidho oo gaari dabadii la idin ku xidhaa la idin jiidaya xildhibaanaa sheeganaysaan calooshooda u shaqaystayaal horgalayaal ah oo ka xamar joogow ee dhulbahantow rag iyo dumarku waa tihiinba idin waa la idin wada ogaya kuwa tihiin
kuwa badan aan ku jirin waa jiraan oo iyagu aamusan amaba aan ku jirin laakiin waa ognahay kuwii halkan anaga kowdii July noogu yimi baa kamid ah dhamaantood rag iyo dumar waxa la isu qarinayaa ma jirto saan u lahayn aamusa cagaheeda la isugu imanaya waxaan arinta taas hadaan kaga gudbo waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waad ogtiin waxaynu ka soo tagnay hadaa moodaysaan in dhulbahanta inta la laayo ama harti la laayo ama loo shuraakeeyo ama cashuurta Soomaaliyeed lagu laayo Soomaaliya inteeda kale nabad ahaanayso ma ahaan doonto tusaalaheeda hadaan ku siiyo Ukraine iyo Ruush markay islaayaan ma isku qaarad baynu deganahay inagu waa maya waxba isugu keen jira waa maya mashidaal bay soo saari jireen iyagu gaastan buu Ruushku soo saari jiray maxaa wax walba kugu qaaliyeeyay adoo xamar degan oo Hargeysa degan oo Burcad degan oo baydhaba degan maxaa kugu qaaliyeeyay adduunku inuu isku xidhan yahay reer Hargeysa beentii balaga ahayd loo lulay reer Burco iyo reer Berbera Soomaaliyay iyaga ku tala galay inay laascaanood gubato dadkeeda la xasuuqo Soomaaliya sanaaga iyo cayn iyaguna ay nabad ku deganaadaan habeenkiina ay xorriyada beerta xorriyada u soo baxaan marxaati ka ahaydeen inay mudaharaadayeen oo ilaahayeen waxaanu taageeraynaa ciidamada iyadu siday u xasuuqeen dhulbahante ama ay u laayeen dhulbahante kama ay fikirin laakiin waxay islaayeen bakhaaradu iyo bacadlayaashu sidii bay u furaanayaan sidii bay hudheeladu u amirnaanayaan sidii baa wadada harti uga soo qulqulaya ama daarotaa uga soo qulqulaya nabad baa u deganaanaysan dadkana dhulku ma guure dadka guure bay ahayd maanta aaway maanta barambarooyinka galay calculation la isugu ma geynin dagaal haduu dhaco inay dhaharanayso maxay maanta sababsatay in muxuu ahay meel walba dabayshu fooriyeyso in la yiraahdo inta meediyada naloo soo fadhiistay iidi dhulbahanta kaalaya iida dharka naga iibsado qaata dhulku waa dhulkiinii oo dadkii shalay la lahaa dhulku ma guure dadka guura waayo in cid isu baahanayso ama la isku xidhan yahay kibirku halkuu ka gaaray cidina ma ogeyn dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaan halkan ina qiiqayn Soomaaliyiina nabad ku deganaanayn haddii qolo waliba qolo sideedii aynu isu qalan jirnay la isu qasho haddii aad daawataan dulmiga iyo dhiigga iyo sharaf xumada ka socota dalka Soomaaliya haddii ninkii loo dhaariyay ma anigu qabiil ma sheegayo maanta maydaan maqalin waxaan marxaati gashanayaa maanta shacabka Hawiye wixii ka dhacay 1991 ma jiro qof reer daarood oo intuu soo fadhiistay yiraahdo hanti baana laga dhacay guriyana laga biliqaystay gabdhaana laga kufsaday kanaana la yeelay sidana ma jiro wixii dhacay way dhaceen baa la wada oranayay maanta marka in maanta xamar oo dadkii Soomaaliyeed iyo magaaladii ummadda Soomaaliyeed cashuurteedii maanta Xasan maanta uu marba dhinac intuu u gadoomo yiraahdo arina garle ay diidna garle xuduudaheeda Soomaaliland way ku mahadsan tahay dhulbahanta calanay ruuxooyaan anaga Soomaalinimo taanaga ma saarayso ugamana fadhino laakiin waxaad ogaataan idinku haddii maanta aad arintaas laga dhiidhii waayo in dadka Soomaaliyeed cashuurtoodii yacni isagoo maanta midnimo qaran raggii dhulbahante iyo gabdhihii dhulbahante ee Xasan Sheekh maalintuu soo baxay u dabaaldegay maanta weli jeelasha Burco iyo Hargeysa ku xidhan yihiin laakiin anagu marnaba kama dib dhacayno anagu waxaanu ognahay wixii maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noogu tala galay oo wanaaga waanu helaynaa nafsi bax baanu helaynaa oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi waanu guuleysanaynaa cid wax laga qaadi kartaana ma jirto haddii Xasan Diiqo iyo Ismaaciil Umar Digiyacab iyo Xamaala Talxadab iyo sagaal xeer hadaa isu xidhaan duqsi ururiyo haan bucin waa baan leeyahay waayo maanta waxaanu ognahay anagu xaq ayaanu ku taaganahay qofkii doonaya midnimada halkan ka curatay iyo muxuu ahaayay waxa halkan ka dhashay inay burburayaan never ever ma burburayaan waxa la yiraahdo dhaqaalihiisa hala burburiyo suuqyada hala gubo oo lagu wareegaya jigaa la gubay boosaasa la gubay Kismaayaa la gubay meel kasta anagu libax baa la yidinta bulbusha ku taal bahal ba cuno maanta annaka ayaa laba isugu jeedna horena isugu jeedna waligeenba nalama jabiyeen qofna nina maanta madiimaha dhabarkiisa iyo garbihiisa ma banaana nin walba ninuu la dhashaa garabkiisa iyo garbihiisa taagan haddii la isu bareeriyo weeyaan marka Xasan Sheekh waxaan leeyahay Xasan Sheekh oo colaadaada banaanka soo dhigo xiniyahaaga full waanu ognahay maanta qabiil Hawiye la yiraahdo kugula ma socdo laakiin tababarka ku socda fila Soomaaliya inuu hal qoys haramuus in la soo raray waa ognahay oo Jabuuti laga soo raray oo la keenay badeecadiina hadda la barbaranayo lana keenay meesha la yiraahdo Muqdisho dad kale la rabo in laga dhigo
qof la dilo qof la xidho iyo qof baqoon hadli karin laakiin anaga cid kastood noo yiraahdo hana loo duleeyo ma banihin kuwa dulooba anagu is dulayna ma nihin taasaan kaga gudbaya waxaan leeyahay dhammaan beesha horta harti ee halkan ku jirta nimanka harti ee halkan jooga waxaan leeyahay cidda doontaba ahaw fiqishini ma dhibaan garaad iyo nimanka harti ee halkan ku midoobay iyo qadiyaday wadaan waxaan idin sheegayaa diinta islaamka maxay tiri haddii wax lagugu sameeyo samir wax haddii lagugu sameeyo lagugu khaldamo samir haddii aad samri weydo intii lagugu sameeyo ha dhaafin laascaanood duqayn dambe oon uga dulqaadanayaa ma jirto inta laascaanood loo geystay burca weynay gaadhaa wallaanan maanta waxaan ula harayaa jirin waxaan idin leeyahay waa inaanu laascaanood masac dambe ku soo dhicin hooyooyinkeedii iyo carruurteediina ay u soo noqdaan gardarrada cad ee shalay buuhooda laga bilaabay waxaan leeyahay reer buuhoodliya ragga halkaas hor fadhi jooga SSC sinaata iyo calanka suuqa qorolugud waa inaad sudhaa 3 sannadood bay habar jecel waxay waday iyo isaaq dhul riix maanta inuu dawlad helay dhul bahanta dulee maanta inuu dawlad helnaye dhul riix maanta inuu dawlad helay barkad fadho xagaynu joognaa maanta bay tahay marka maanta qolo walba maalin bay leedahay waa inaad sudhaa intaad xukunto ee buuhoodla intay xukunto waa inaad sudhaa calanka galgal baa la fadhiyaa iyo halkan iyo waxa leedin kama asmacayo waa inaad maanta cirdigiina iyo sharaftiina aad difaacataan hebel baa halkan soo taagan iyo hebel baa cashuurtiisa iyo geel iyo ariga harti iyo gari iyo fiqishini iyo madhibaane halka ku midoobay raggooduna ku midoobeen Allah bay nagu filan iyo waxaynu haysano iyo daarood weyne oon gaar u leeyahay waxa weeye war 7 bilood ilma jiraatihiin 9 bilood 7 bilood ka hor 7 bilood ka hor ayaad waxaad ku qabsateen shir meesha la yiraahdo jigjiga oo lagu yiri maxaad ugu qabsatay SSC baad samaysatay waa laga dumiyay qaatumaad samaysatay waa laga dumiyay 7 bilood ka hor bay jigjiga markaad ku qabsatay la isku ka haystay maantana waxa tahay ilmo yar 7 bilood jira oo hadaaqayo hadda hadaaqa bartay baaba hadda leh baa tahay maalin walba in lagu yiraahdo inta horgal xun lagu soo dhigo aad adigu qabiil isu kala gurtid hadaad kala guri kartid oo kala garan kartid raggii ku shahiiday lafahoodii ee la wada aasay oo dhiigoodii kala garan kartid iskala gur haddii kala miyaa ma maqli karno qabiil ma maqli karno waxaad isku kala gurtaan dhalinyarada yar ee loo tuurayo jambalka ee ku jirta social media ee aan fakarayno dulinimada iyo qabiilka xun ee lagu soo dhex tuurayo war horgal idinma kala xigo wixii xun idinma kala xigaan markuu nin reer hebela ama reer qara ama reer qansaxo idinka mid horgal ah soo galo inaad iskala gurgurtaan ma aha labadii qabiil ee deganaa madiina ee la dhihi jiray Aws iyo Khasraj ee carabta ahaayay istili jiray markay jahliga ahaayeen intay nin kala dileen iyo wiilashii gabayada isu tirin jireen yuhuud ba isku maxay xoqi jirtay sifa aan dhexdooda loogu noolaano iyagu mar walba ay isu dilaan iyadoo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam jooga laga faa'iideysto waxaan idin leeyahay iyada oo wiilashiinii idin wada dhintay muxuu ahay lafahooda googo'in oo gabdhihiinii idin dhintay lafahooda googo'in oo aydan dhiigoodii kala saari karin waxay u wada dhinteen waa mabda waxa loo wada aasay mid loo aasin waa mabda waxa maanta ay meel ugu wada go'een waa mabda inaad maanta adoo nool intaad fulin lahayd fariintoodii iyo waxay kaaga tageen maalin walba aad adigu mar walba lagugu soo dhex tuura jambalka ama nin social media fadhiyay kuugu soo tuuro ama dad magacyadiina la baxayo calamadiina saartay oo reerkaad dhulka isku haysataan idinku soo tuuraan oo la kala safataan waa idin aqli xumo waa idin jaahilnimo waa idin qaranjab waa inaad joojisaan arrimahaas oo kale oo ka digtoonaataan social media waxa ka buuxa muuse juudaan dhiigyaab dadku uu qortay oo qabiilkiina mid walba dhul bahanta sheegto oo mid waliba calanka saarto oo luqadeeni lama kala yaqaano markaas magaca daaqoonta ku soo wacan ku ornay dadkan maxaa ka siiya mana aha dad dhul bahanta ma qancin kartid inaad jiraado waayo wala si wada luqad egiya intaad idinku waardiye noqon lahaydeen oo social media kii soo galaba ku yaaci lahaydeen oo oran lahaydeen maanta qofkaasi anaga ma aha idinkii baa la isu adeegsanaya la kala safan waxaan leeyahay marka dhalinyarada ku jirta social media horgal ka xamar jooga haduu yahay iyo ka hargeysa kaaga imanaya haduu yahay iyo mid inagu dhex jira haduu yahay war labada gacmood ka xidho gaariga inta dabada ugu xidhan ilaa laamiga jiida xukunkiisu waa ka last week ninkii yimid ee magaalada fidqalalada ka riday waxaan saarayaa gudida 3 eedaas waxaan leeyahay garaadadeena
qofka waxa la cafiyaa markii dadkii uu wuxu geystay cafiyaan warninkii gabdhaha laascaanood habeenkii guryaha ugu dhici jiray ina jiida guryaha ugu dhici jiray ee intuu habeenkii iyagoo bilaa googaraad oo bilaa garbasaaro bilaa gamba guro geen jiray jeelka oo aroortii boqol iyo kontonka qaraamaadka ka qaadi jiray oo calanka 26 Juun gabdhihii xidhnaa intuu qaaday berbero oo 45 degree ku soo xidhay ee guriga qolka bilaa daaqada ah ee kulul ku xidhi jiray baad leedahay waa la cafinaya maadu wax ku yeelo cafinaya mise annaga gabdhaha dhulbahantu guri jiro waxa ay tacadiga u geysan jiray baare cafiska annaga ma doonayno inaad kaas oo kale noogu soo gelisaan haddii kale wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxa dhacaysa inay gabdhuhu intay qaataan isoo laascaano dhex taagan madaxa ka toogtaan da taariikhdana gasho gabadhii dhulbahanteen ninka toogatay haddaad mar dambe noogu keentaan kaas oo kale magaaladaas ama magaalo kaleba reer waliba kiisu dugsanaya way og yihiin inuu xildhibaan ahaa kii last week tagay magaalo deganaa war waxaan soo miidhan bay idinku dhex jiro nimankow waliba nimankow gabdhuhuna waa ku jiraan saawandu mid walba adeerkeed way taqaanaa dhuumasho dhabarku muuqdo halgan iyo xorriyatoona ku heli maysid halgan iyo xornimo midnaba ku heli maysid halka aniga maanta waxa i keenay dhulku ma guuree dadka guuree guur dhulku waa Soomaaliland guur anigu xuduudda iyo cadan ku socdaaya damiirkiinu ha shaqeeyo oo aqligiinu ha shaqeeyo oo umul ma tihidin ilowshiye dhawaasha iska daaya oo raggeedna 10 iyo 20 u aasaysan xusuusnaada waxay idin kaga tageen taasan doonayaan inaad idin kaga tago nimanka baanta jooga muxuu ahaa waxaan leeyahay dhammaan harti weyne waxaan leeyahay midnimadiina adkaysta xasan sheekh iyo Ismaaciil Abu muxuu ahaa dhiigyacab kuma soo duulin oo kaliya laascaanood ee waxa lagu soo duulay dhammaan gobolada harti kombe waxa lagu soo duulay midnimadeena waxa lagu soo duulay qadiyada maanta aynu ku midownay wax kale laguma soo duulin xasan wuxuu ahaa Ismaaciil Umar Geelle nacaybka dadkan magacan daarood wuxuu ka bilaabay carta ayuu ka bilaabay nacaybka iyo isku dirka maantana waxa weeyaan waxana lagaga faa'iideysanayaa waa nimanka daarood ee munaafiqiinta is wada haya way hadda dantiina garan lahaydeen oo garan lahaydeen waxa la kala qaybinaya la hedateelinaya inuu maatadiina iyo dadkiina iyo dalkiina yahay ya mar hore ayaad garbaha isa saari lahaydeen oo dadkiina iyo dalkiina u tali lahaydeen iyo dumarkiina magaalada maanta aan joogo ubax lagu indhoogsadaa ma joogo caruurtii iskuulka dib u bilaabaysa dib uma bilaabayaan ma joogaan caruurtii waa ghost town weeyaan waxa maanta halka dhigayna waa idinka isu fiirfiirsigiina weey magaalo aan cidna ka xiga ma aha saasoo tahay maanta in la yiraahdo muxuu ahaayay Puntland dab laga shidaya oo mid iyada ay dhashay Puntland dhashay loo soo galiyo tooreyda galka loo soo galiyo laascaanoodna mid ay dhashay galka loo soo galiyo mindi ku hoos qarsoon ya geeda loo galiyo mindi ku hoos qarsoon loo galiyo oo la yiraahdo idinku isku dila ma garanaysaa oo maalina muxuu ahaayay la yiraahdo meeshay joogaan bal la isu galiyo iyaga colaad la isu galiyo dad macnaheedu waa isu gurmani haddii haramuus la idinka xukumo oo haramuus mustaqbalkiina iyo gabdhihiina iyo muxuu ahaay jiritaankiina iyo magaalooyinkiina waaweyn iyo dekadihiina doonaysaan maanta in laga gubo rag ma tihidiin ee gabdhaha ku soo wareejiya xilka hadaba annaka iska celinayna ragga annaka iska celinayna cadowgayaga haddaydan naga celinayna annaka iska celinayna haddii kale annagu dabarkiinaanu taaganahay ma yeelayno dulli dambe ma yeelayno cid aanu ka yeelaynaa ma jirto idinkana idinka yeelimayno nin kalena ka yeelimayno waxaan idinku baaqayaa dhammaantiin inaa midowdaan dhammaan wallaahi inaanan anigu maanta kala jeclayn wiil Soomaaliyeed laakiin waa lay tababaray guur kelmadda la yiraahdo meel ka dambayso la istaartaa ma jirto shaqaanan rabin meel baanan tagay maanta anigu inaan guuro oo aan Soomaaliya sanaag iyo cayn ka guuro anigu baritu ka maalin iyo inay markay aniga wiilashaydu shaqadooda qabsadaan aan la xisaabtamo gabdhihii oran jiray guur oo yiraahdo aniga kuwii iga tagay ee aan aasay ya waxbaan ku aasay oo aan ku kaga gamaya dalka iyo dadka xornimadoodan kaga gamaya adigu kuwaagi maxaad kaga gamaysaa su'aalaha inaan weydiiyo ayaa ii diyaarsan waayo wiilka dhulbahanta maanta dalkiisa ku dhimanaya sharaftayda iyo cirdigaygu ku dhimanaya dalkiisa inuu difaacu ku dhimanaya waan ka samraya laakiin gabadha isaaqay waxa adigu wiilashaada yaala xeebahan muxuu ahaayay buurahan laascaanood yaala ama lagu aasiyo maalin walba cagafta ama lagugu keeniyo burceed ku aasayso
waxa ay ku dhimanayaan markaad raggayga ka qaadaan guusha ka qaataan markaa waxaad ku gamacdo waad haysataa markaas ku keeno burco og iyo waxba ima calaamatana aynabana awal baana laha gaatama markaan isugu nimaadno ayaan ku oranayaa wiilashaadii aniga wiilashaydii waxaanay ku dhinteen oo dalkaygii bay xoreysteen adiga maxay kuwaaga ku dhinteen xisaabta maarintaas ay noo taala waxaan leeyahay dhammaan daarood meel kastay joogaan midooba oo dulliga iyo sharaf xumadana dul saaran meel uga soo wada jeesta oo maalin walba nimaad idinku xildhibaano u tihiin oo aad fadhidaan intuu kursi isku wareejiyo maanta in cashuurtii Soomaaliya lagu laayo hubka berberana looga soo dejiyo oo la yiraahdo cali garle caydiid garle oo UN ku wixii ay soo dejiyeen la yiri xitaa in hal baaro independent hal loo diro laascaano crime-kii ka dhacay baara xasan gurguurta isaga diiday isaga xafiis kasta wixii la dhigo isaga ka daba taga laakiin waa haduu ka cilmi badan yahay maanta dadka halka ku dagaalamaya ee fiqishin iyo madibaan iyo gari iyo harti haduu ka aqoon bato maanta anaga dawladda dambo Soomaaliyeed aniga iligama xigo laakiin waxa uu maanta xasan gurguurta xukumo ee boorsooyinka lacagta uu ku soo doortay ee la doonaya maanta in la igu duleeyo ila kuwi aniga magaciigu raacay baaba ku jire ee la igu duleeyo walla la igu duleeynayo bille iyo tole isxabaalada buurta ii saaran Soomaad arag walla kuwaas damci Muuse kuwa beeniya damacaagana beeninayo saddex xagal kasta soo samayso duqsi urur iyo haanbu jawaaban kugu soo gabagabeeyay salaamu calaykum waraxmatullaahi